muuqan maxaan ku idhahdaa shilimaad yaani kuwii laacin sandareerada ay cadowgu bixinayo oo uu hantidaada iyo dalkaaga doonayo inuu ku qaato yaani waxa weeye sandareerada bilusoormad waase lagu sabay ha u qaadan inay maslaxad ku wadaan ha u qaadan inay dantaada ka shaqaynayaan ha u qaadan inuu horumarkaaga yahay waa adiga iyo burburkaaga iyo dalkaaga iyo dadkaaga si loo duleyn lahaa weeye shalay dulgaynu ku jirnay adduunka aynu mari weynay ee meel kasta aynu marwaba sanka layna ka qabsaday tii baa la rabaa maanta xoogaa indhaha aynu kala qaadnay dib laynoo ku celiyo ilaahay baynu ka magan gallay subxaanahu wa tacaala dadka waxaa wadana waxaan leenahay war ilaahay ka baqeen war rabbigooda ka baqeen oo ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda ha u tureen ummad Soomaali la yiraahdo ayaa jiri jirtay xilli oo arladan ku noolaan jirtay intaan arladeenna ummado kale qaadan ummado badan baa ku herdamaya caalamka oo dhan maanta duulaan wuxuu ku yahay dalka Soomaaliyeed waxaad arkaysaa Kenya oo inta inoo jirta oo maxaan ku idhahdaa aynu ognahay tabarta iyo awoodda Ilaahay waagaynu dawladda ahayn aad la socotaan dagaalkii 77 ciidamada Soomaaliyeed waxay dhaxmareen dhulka Kenya ay dhaxmareen iyadoo waxba laga weydiin dadkii noocaas ahaa baa maanta layna ka celinaya yam iyo qadaadweyn baa layna ka qaban laayahay waxa sababaya waa maxay sababta waxa keenaya waa khilaafka iyo ishaysadka iyo isnaac inagu aynu isnaacayno waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa godinteeray haddaan barkay kugu jirin ima goyseen geedka yiraahdo baa layidhi waa lisaanul xaal yaani waxa weeye godintu waxay ka gooban tahay qori iyo bir qorigu wuxuu ka mid yahay geedka marka haddaan barkay kugu jirin ima goyseen macnaheedu waxa weeye haddii aan bir kaliya tahay oo aan qorigaasi kugu jirin waxba imaada yeesheen laakiin barkaygaas baa sababaya inaad goyso waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed Kenyana ma hawaysateen Etoobiyana ma hawaysateen cid kale oo cadowgeedana ma hawaysteen haddii aanay iyadu kala jabnayn oo ay cadowga la kala safnayn oo dabada ka soo wadin cid hawaysan lahayd ma jirto waad maqlayseen hadda baaqi ugu dameeyay badii la isku haystay go'aankay soo saartay Kenya oo ay tiri maxaan ku idhaahdaa waa in dib loo dhigaa waa markii shanaad oo dib loo dhigay sababtoo ah Soomaaliya sidaanu ka maqlayno siyaasiyiinteeda wax dawladii kama jirto bay yiraahdeen maxay ka faa'iideysanayaan inta yar ee khilaafka ah in marka dalka waxay kala ku dareen wax ka sii daran oo ah Soomaaliya bad kaliya ma aha dalbayba naga haystaan qoraalkan dambe ay gudbiyeen waxay ku soo dareen in dal Soomaaliya ay Kenya leedahay inay Soomaaliya haysato oo marka ay u jeedaan jubbooyinka iyo wixii la midka marka inagiina waxaynu isku haysanaa midqaala darrati iyo waxaan qiimo lahayn iyo meel aan maxaan ku idhaahdaa inagiina duulaan baan dalkeennii iyo dadkeennii iyo maxaan ku idhaahdaa hantideennii baa duulaan lagu yahay markaasaynu inagu waxaynu isku haysanaa mansab iyo kursiga kan siday isugu haysteen reer Andalos oo ay maalinba mid uga tuurayeen intay cadowga soo ka haystaan kii ugu dambeeyay laga tuuray sidaasaa noqon doontaan Soomaaliyay haddaad maanta fikri weydaan oo cadowgiidna u midoobi weydaan oo aad garan weydaan dantiina iyo maslaxadiina maslaxadda ummadda maslaxadda dalka maslaxadda diinta haddaad garan weydaan waxaad ogaataan kursiga kan inaadan calfanayn ee ama Kenyaati qaadanayo ama Etoobiyaan qaadanayo ama Mareykan iyo wax la halmaala ay qaadanayaan dalkan waa lagu soo duulay waa la haystaa waxaan aad arkayso mucaaradka dhammaantood dabada laga wada xaqiiqadu markaynu ka hadalno ajaanib bay dabada ku wada hayaan haddii aanay saasi jirin ninna kuma dhiiradeen waxyaalaha ay samaynayaan yaani waxa weeye burburkaynu soo marnay dawlad la'aantaynu soo marnay dilkii aynu soo marnay yaani wixii ina qabsaday faqri iyo dhibaato aynu soo marnay maanta oo aynu xoogaa ka soo kabanayno kuwa ku handadaya oo markaale dib baa loo noqonaya 91 baa dib loogu noqonaya yaani aqligaasi inaanu aqli Soomaaliyeed oo caafimaad qaba ahayn qof walba halka waa ka arkaya waxa weeye qofka bini aadamka ah shalay wixii dhacay inuu ku cibro qaato baa la rabaa maanta waa inuu gartaa shalay maxaa dhacay meesha uu leeyahay waa loo noqonaya meel noocee bay ahayd ma meel khayr iyo barwaaqo ka jirtay bay ahayd ma meel biyo iyo caana laysa siinayay bay ahayd mise meel baqtiga la cunay bay ahayd waa in dib loo eega dadka qabiilka iyo qabyaaladda arrinka ugu sacabtumayaana ha ogaadeen malaayiin iyaga ka midi inay ku arrintaas ay maartay qabriga ku galeen oo adduunyo aakhiraba ku seegeen ilaahay aynu ka baqno subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtoba waxa la gudboon inay midowdo oo danteeda garato oo cadowgeeda garato oo maxaan ku idhaa diinteeda garato oo dad muslimiina weeyaane adduunka way ka tagayaan waa xadiiska nabigu leeyahay calayhi salaatu wa salaam
النبي يقول إيه فلتأتي منيته وهو مؤمن qofka doonaya inuu jannada galo wargeelidu hay u timaado isagoo Ilaahay rumeeyay subhanahu wa ta'ala isagoo maalinta qiyaamada rumeeyay koonka waa ka tagay xisaab baa ka damaysa waa la weydiinaya amalkii uu shaqeynayay maalmahan kursiga kan yaanu ku muuqan maxaan ku idhahdaa shilimaad yaani ku ilaacin sandareerada ay cadowgu bixinayo oo hantidaada iyo dalkaaga doonaya inuu ku qaato yaani waxa weeye sandareerada bilusoormadu waa lagu sabay ha u qaadan inay maslaxad ku wadaan ha u qaadan inay dantaada ka shaqeynayaan ha u qaadan inuu horumarkaaga yahay waa adiga iyo burburkaaga iyo dalkaaga iyo dadkaaga si loo duleyn lahaa weeye shalay dulgaynu ku jirnay adduunka aynu mar weynay ee meel kasto aynu marwasanka layna ka qabsaday tiiba la rabaa maanta xoogaa indhaha aynu kala qaadnay dib layno ku celiyo ilaahay baynu ka magan galnay subhanahu wa ta'ala dadka waxa wadana waxaan leenahay war ilaahay ka baqeen war rabbigooda ka baqeen oo ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u tureen intaas haddii aynaan samayn dhibaataynu la